wanaagsan waa maalin kale iyo maalinka labaad ee Ciidul Fitriga waxaana idinkaga soo warramayaa xeebta weyn ee Liido ee magaalada Muqdisho ee degmada Cabdicasiis jawiga waa ka duwan yahay sidii hore looga bartay xeebta weyn ee Liido waxaadna arkaysaan bulsho aad u fara badan qaarkood badda ay ku dabaalanayaan halka qaarna ay ku nasanayaan bannaanka xeebta ayagoona markaasi ku sheegaya in ay ka soo dalxiis tageen degmooyinka magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gobolada dalka qaar fara badan oo dalxiisayaasha halkan ku sugan oo aan mikrofoonka danan la dhax qaadnay waxa ay noo sheegeen in ammaanka halkan uu aad safe u yahay sidoo kale waxa ay sheegeen in ay kaga mahad celinayaan hay'adaha ammaanka ee isku howlay sidii halkan ammaankeeda 100% noqon lahaa dalxiisayaashan oo gabi ahaanba dhalinyaro u badan ayaa waxa ay noo sheegeen in markaasi halkan ay jawi qurxoon kula qaadanayaan hadday ahaan lahayd asxaabtooda waalidiin iyo sidoo kale awlaad yar yar oo markaasi halkan ku sugan qaar ka mid ah dalxiisayaasha haddaba warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen sidan waxaan ka soo ciidaystay degmada Marjab anagoo ku faraxsan caruurteen la ciideyna waxaan ku sugannahay xeebta Liido ma sha Allah alxamdulillah ku faraxsanahay xeebta Liido jawiyadii hore loogu bartay waa ka bedelan yahay maanta ma sha Allah camiranta ma sha Allah dhinaca amniga hada fiirso isdhexgalka bulshada waxaa dareemi kartaa tirada maarta dadka imaadana aad fahmi kartaa ciid ka dambayso waa ka sii nabad galeeda waa ka sii balaaran tahay dadku waa ka sii tiro badan yihiin farxadana saas oo kale maarta way si laba jibaaran tahay alxamdulillah boqolkiiba hadda waxaan dareemaa in maartay jiilka soo koray ku faraxsan yihiin anagana hadana duqood waa ku faraxsanahay cilmeen oo ciidayo nabad ku ciidayo anagana nabad aan ku ciideyno boqolkiiba ku faraxsanahay ma sha Allah waxaan ka soo ciiday degmada Yaaqshiid waa maalintii labaad alxamdulillah magaalada waa jawigeedu waa degan yahay abna aad iyo aad u fiican waa haysanaa ilaahay baa mahad iska leh noo suurta geliyay in aan si nabada aan ku ciidno oo caruurtayni iyo asxaabtayni iyo familkayna soddonka casho oo cibaadadii Allah oo nagu waajib yeelay aan soo gudanay maalintii labaad u dabaaldegana waa ilaahay maadiis alxamdulillah waxa kale oo ilaahay maadiisa maanta oo magaalada aan kala xiriin oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo warbaahintii magaalada ina soo dhax galo oo shacabkii culamaa u diinkii haweenkii barbaartii odayaashii fikirkiina dhiibta dhahayna waa ilaahay maadiis la haysama jirin wadanka wuxuu kala xiraa jiray qabqabla dagaal amba hogaamiyo kooxeed wax la yiraahdo marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in aan u gudubno doorasho qof iyo coda oo codkeena aan dhiiba karno oo nin aan wax gelino ma faa'iida oo kursigeena oo iskaga fadho oo xabad aan noo qabaheena magaceena sheegay amba qabiil ahaan ugu matalay amba gobol ahaan ugu matalaay marka waxaan maanta fursadda anigu ka faa'iideysanahay aan shacabka Soomaaliyeed dhalinyarada aan ku baraarujinahay in ay u kacaan si ay diintooda Ilaahay ay u difaacayaan ay wanaajiyaan diinta Allah subhanahu wa ta'ala oo noo soo dajiyay ee sunnada nabigeena kaleey salaatu wasalaam ay ku dadaalaan ay habka ay gaalada ay madax u jartana ay iska joojiyaan oo ay wada dadaalaan oo isqurxiyaan waxa inaad horta aad ku waxayso waa inaad waalidka ugu daysayso amba abka u jarajaray in adeerka u jarajaray abtiga amba aabaha u jarajaray walaha sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam aan waafaqsanay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo walaalahay amba aan dhalay amba ila dhashay amba abtiyalka ay ka tanaasulaan waa baaqan maanta ciidda waa ugu faa'iideysana waxaan kale aan dhihi lahaynay nabadoonnada meeshay soo gaarsiin waa reeysan laakiin biriga ka tanaasulaano oo ha ka heraano xirigay gadaal uga dhaganaanay birimada xasan sheekh daba kacaano horay aan socon assalaamu alaykum warahmatullahi alxamdulillah waa faraxsana ilaaha maad iskale oo nabad nagu yidsiyay oo soonkana nabad nooga soo dhameeyay alxamdulillah waxaan leeyahay ibaadada la sii wado oo yaan la dayacin ibaadadii la soo waday insha Allah inta badan hablaha lagu matray inay dabaashi yaqaanaan marka adiga ma dadka dabaashi yaqaana ku jirta ma dabaal ma aqaan saja ka duuxirna waa aragtay marka waa iska ciyaar leh mooyo ma dabaal ma aqaano wallahi waxa soo iideystay badda Liido magacina waa nicla hada waa la yaqaan xaafadahay meel kasta waa la yaqaan ay xaafada ka soo iideysatay degmada Cabdiciis waa tahay jawiga xeebta Liido iyo maalinka labaad ee Ciidul Fitriga sida waaragtaa wallahi sheef waa jawi wala aan la jira yaa ku soo ciideystay maanta yaa ila soo iideystay saaxiibtay iyo niman oo saaxiibnaan marka waa aad u dabalateen saaxiibtay al daash nimantana ilaaliyay halka ay ka salaamaysaa marka halka aad salaamaya asxaabta oo aad ku xiran janaalta aad salaama waxaan ka imaaday degmada Afgooye waxaan hadda ku soo dalxiisay Liido anigii iyo asxaabteeduna waa soo baxnay
mideeda kalena maadaama hooyo aabbo aysan ii joogin oo aabbana meel kale uusa jiro hooyana ay meel kale aadi cadaalay aadi hooyo aabbana Itoobiya jiraa keligay isu soo dalcisay abal iyaga ay soo raaci jireen maxaa dareemay marka maanta waxaa dareemaa farxad iyo reereen waxaan ka salaamayaa hooyaday macaan oo haddeer ila joogin oo jirto cadaado aadan ku salaamaa hooyo macaan intaan ka salaamaa aabbana sidoo kale asna ilama joogo waxaan ka salaamaa asna Itoobiya aab macaan adna aadan ku jeclaa intaan ka salaamaa aab ما شاء الله horta aad iyo aad u fiican tahay dalkeen horumarkaas oo gaaro nabadgelyana ay ka jirto dhamaan dadkaan inay u soo damaadshay tageen xeebta Liido aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno danan tiifiyada weyn halka ayaa ka salaamaysaa marka dhamaan waxaan ka salaamaa oo dhamaan muslimiinta iyo dhamaan qaraabadeeda ehelka waa dhawahay magacaygu Cabdullaahi Xasan Cabdulle waxa ka soo ciideysay degmada Dayniile maanta waxa imaaday xeebta Liido aniga asxaabteeda waxaan ku ciideynaa meeshaan waa meel aad u wanaagsan jawigu degan yahay maanta badda ma kaxsana marka jawiga degan yahay asxaabteeda dhamaan halkaan ma ku soo koobi karo dhamaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak كل عام وأنتم بالخير هذا مسيت أنا مقعي عبد الرحمن حسن زبير دقمة عكس سعادة حمر ججب مالك الواد عيد الفطر سلوي سفي عنا وعيد واضح حتى وحكوا سكنت هاي حيبة الليدو ما شادي الحيس أو سعاد يا كل عيد هل كان كل صغار ساك والد كي ولا ليه واقد أنت سائل سعد أصحاب تاعك كل داونيس الهوذا كان داونيس محله عيد ونكسن waxaan bali u diraa hooyaday macaan iyo dhamaan dadka ku nool Muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaan leeyahay ciid wanaagsan nabada ku soo baxay si nabadana ku imaaday marka waatana saana loo dabaashaalooyaa marka alxamdulillah ku faraxsanahay jawiga maanta waa tahay yaa kula soo ciideysto kula soo wallahi kaliya soo baxay laakiin dad badan way ciidan oo xaafadii jiraan marka ina kaliya soo baxay saas waa ayaa ka salaamaysaa halkaan waxa ka salaamaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed kulli waa saamay tahay marka bulshada dhan carada ku nool waa salaama inta badan maalmaha ciida ah xeebta weyn ee Liido ayaa waxa ay bartilmaameed u tahay dalxiisayaasha ku dhaqan gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho ayagoona dhalinyarada intooda fara badan jecel inay halkan ku damaashadaan ayagoona kula damaashada asxaabtooda iyo waalidiintooda Cabdullaahi Yare raadiyo iyo TV-ga danan xeebta weyn ee Liido magaalada Muqdisho fogeysiis farxad haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaalada World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka aad jeceshahay Premier Wallet